maadada labaad waxaan rabaa inaan weydiiyo suldaanka inaad heesaha Soomaalida inta badan dadka waxay wax ku fahmaan caalamka oo kale markii la joogo muusiga inaa Afrika dhaladka asoo qatiyas I hope taas inaa heesa kale sida Hindiga oo kale inaa Carabta kale fanaaniin kala soo qaatay Soomaalida ee loo barto community-gana oo sii balaarto waa jeclaan la arrinkaas soo kordhay international inay noqoto fanaaniinteena وما سنت ولا شيء وما سنت وكذا من علنيا سؤال شغل واحد بدن يكون من كايسر السعودة ويقر شيء سنت هاي إن شاء الله هدول هذا كان نقضه إن فنانين كل دول عن هيسلس والسمايو يمكن عيد إن شاء الله هدول هنا بدو قارسيو نقول نو قارسيو حاجة فنان في كندا أو إن شاء الله عن هاي الصوت قاعد دونه وجيدني ليرادو إن شاء الله وموسيقى وان هبيني وصوتنا waxaan rabaa inaan weydiiyo su'aal iyo hal codsi ah su'aashu waxay tahay Suldaan Seraar waxa tahay fanaan waad heystaa ma leedahay hal abuur oo ah inaad adiga wax curiso xagga yani heesaha tan aan ka codsanayna waxay tahay waxa jiro dad hal abuur ah oo jecel inay heesaha kale wax ka sameeyaan marka waxaan ka codsanayaa heesaha aad qaadaan iyadoo bila muusiga inaad dib u soo celisaan si murtida ku jirta iyo micnaheeda loo fahmo haddii aan dhanka curinta ku horeeyo waa jira waayihi xilliga fanka aan ku cusba waan isku dayi jiray laakiin mar waxaa jira markuu waxaaga shaqayn waayo inaad ka soo baxday laakiin aad ku madaxdayso tiraado wax iga soconay wax soconay ma jiro waa jiraan heesa aan sameeyay heesan iyo walaalkii xariir aan wada qaadnay baa jiray oo dil dhab ugu dhihi jiro waagi oo ha taas ana sameeyay laakiin wixii ka dambeeyay heesa weynaan ka qaatay bay ahayd laakiin waa la ii sameeyaa waana la ii laxmeeyaa anigu mana la xameeyo mana sameeyo iminka haddana intoosan hadalka noo bilaaween Suldaan waxaa maqalnay xataa managerkiisa Khalid oo hadlayay shaqo kasto markay socoto team ka shaqeeyo ma aha ana la dhaho qofkayba every single thing wax walba oo kaligiisa qabto waxay ku qorxoon tahay marka dad badan ka shaqeynayaan qof wal qayb oo expertise ku leeyahay khibrad oo ku dheereeya marka aad iyo aad ku mahadsan yahay Suldaan su'aalaha naga jawaabay waa fursad qaali ah mid aan hore u aragna ma aha qof oo soo fadhiisanayo oo su'aalaha loo diyaarinin asir wadiinaysid oo naga aqbalayna oo ka qayb qaatay marka hal mar aan soo cino